Granby oo ay Soomaalidu u garan og tahay Alfanaan Dooli toorkii aynu ku ogeyn isla markaana aan islahayn waxba kama qaban karo waa farsameeyay waa kala dhigay isla markaana wuxuu ka dhigay mid shaqeynaya oo wax soo saar leh oo haatan waa tarisaltigu muuqdo oo ay gabadhii u qabay ku dhawaaqday haddaba sidee ila dhageysan muuqaalkan soo socda adigoo page-ka like gareynaya postigana sii share gareynaya commentigana aragtidaada ku dhiibanaya Alfanaan Dooli oo ay Soomaalidu u taqaano sidoo kalena magaciisa caanka ah la yaqaan uu yahay Granby oo ah nin 30kii kor u dhaafay fanaan ah jilaana ah ayaa sanad ka hor la midoobay nolosha kula midoobay xaaskiisa Idikuway oo ah gabadh model ah Alfanaan Granby ayaa aad uga yardaadiisa muuqaal ahaan waxaadna moodaysaa ilmo yar sidoo kale xaaskiisa uu nolosha kula midoobay Idikuway waa mid muuqaal ahaan aad uga da'weyn isaga haddii aad aragto isla markaana aadan Alfanaan Dooli aadan garanayn waxaad u qaadanaysaa labadan qof ay is ag taagan inay yihiin hooyo iyo wiilkeedii oo marnaba maskaxdaada ku soo dhici mayso labada qof waa isqabaan si kastaba ha ahaatee lamaanahani waa lamaano nolosha ku midoobay isla markaana isqaba ha isku guursadaan jacayl amaba lacag ha la isku guursadeen Alfanaan Granby oo ay Soomaalidu u taqaan Alfanaan Dooli ayaa sanad ka hor dadku aad u hadal hayeen guurka xaaskiisa Idikuway sababtoo ah waa laba qof oo kala muuqaal duwan midna muuqaalkiisu aad u daawan yahay midna aad u yar yahay Soomaali badan ayaa aad uga falcelisay isla markaana wax la yaab leh ay ku noqotay in labadan qof nolosha ku midoobaan taas oo ay Granby ku tilmaameen inuusan gabadhan waxba ka qaban karin laakiin haatan uur bay u leedahay sida iyadu shaacisay